رمضان شهر واحد كالعام بل هو زائد قد فاز فيه العابدون رمضان هل هلاله وقاجيسنahay awooman kanan haya oo gabartayda dhashay gabartaydina ma joogto onan gaajaan hayso lugta hada eberan kay dabeela ay marti waxaan qabno male ilma awoomanka xal waa qadeen bari waa qadeen waxaan haysano ma jirto kaanka iska fadhina ma way waxaan qabno ma jirto ilmahan oo dhan awooman waa ilaahay idinka raal noqdo hooyo maamadan yaa maamadan asaay waa garaad oday ka dhinta asaay dadka oo nagu soo kordhawaa iyada hooyada abaayo soo mar ma gabadhaas culayska sida ka leexdo wallahi ilaahay baa ku jirgaamadan culayskooda hooyadan waa hooyo asay sida insha Allah ilaahay diskareyna qoreyna biidnillah nin walba wuxuu alla waa calfo cunaa sidaasaan iska ayadoo jeengad yar la saara jeengada iska soo hore biyihii waxaa u baahato insha Allah waxaan u baahanaa guryaha bacda la saarayo oo kale insha Allah baay annaga waan isku daynaa bacdaas inaan ku soo darno rabadaankana idinkan waxaad ku anfurtaan biidnillah runtii waxay ila tahay inaan meesha aad u garanayo maxaa yeelay sanadka hore rabadaanka hore ayaan diiwaan gelinay dadkan halkan maamul indhoole inay deganeed oo maleynaya abo maamada indhaha laga haymiya iyadii waay يا هاي يدي ويلك جرناميا ها هاي رجس قرابو هاي مقعاقة معكم مجرى هاي بازلاي نوكير ها نوكير شغال ما اللي واي أساس ما يصير يسغزاين أوربام ها إلى كارا هاي الماء يا دالي الماء حالي ويلكي أودنت أديك هاي أنا هاي إلى كارا إن شاء الله كدوان قل هاي هاي دوان قل walaalyaal runtii dadkan waa dadkeeni balan isku dayna insha Allah bishan Ramadaan inay nastaan oo hadii xamaali ay soo qaadi jireen ama dhaqo ay aadi jireen ama tuugsi ay aadi jireen inay ka nastaan oo bishan Ramadaan maadaama annaga aan helayno waxaan ku afurno aynan dhicin dadkan maanta dad Soomaana inay waayo waxay ku anfuraan walaalyaal tan waa noloshooda waa halkay ku nool yihiin runtii deetiina markii loo fiiriyo waxaan rajaynayaa inuu farqi weyn u dhaxeeyo walaalayaal waa maxay waxaan ya laga yaabaa qof aan fahamsanayn calaamada kristanka inuu ku dhigay oo kale afar cunuga agoomana haystaa oo odi lahayn oo ilmo agoon oo aabahood dhintay dambiisha isiga xamaashtaa suuqa bakaaraha ka xamaalataa bakaaraha ka xamaashtaa dambiila ku xamaalaa Allah ka raal insha Allah waxaan rajaynayaa bishan Ramadaan inaad ka nasato shaqadaas abaayo ilaaha ka raal noqdo biidnillah haya abaayo haya Cabdullaahi rajis gare runtii walaalayaal wadooyinka qaarkood qofka ayaana mari karinba sababtoo ah jingadan ayaa xaganaysaba wana gesges u martaa sidaan waay wadadooda raaxada u socon jirta ma jirto iska soconaysa wayna isgaabisaa waay assalaamu alaykum بس يا بروبا haddii aad dhehaysid 5 bari kaliya aan u awoodaa waxay ku anfuraan waa $8 haddii aad dhehaysid 10 bari baan awoodaa waa $16 haddii aad dhehaysid 20 bari waxay ku anfuraan ayaan siinayaa waa $32 haddii aad dhehaysid 30 bariba raashinka waxay ku anfuraan ayaan siinayaa waa $50 wixii aad awoodid ayaad kaga qayb qaadan kartaa walaal Allah subhanahu wa ta'ala ka raal noqdo rabbi subhanahu wa ta'ala ha ku xifdiyo haddaba sidee sadaqada ku bixin karaa walaal sadaqada wax ku bixin kartaa laba qaab midka koobaad waxa waaye inaad xawaalad aad ku soo dirtid oo numberka balaas 256666674 sidoo kale EFC aad bixisid 66666744 adeega zaad waxaad ku bixin kartaa xidig 88 eber xidig 66666744
xidig lacagta gool sahal iyadana waxaa lacagta ku bixin kartaa xidig 883 xidig eber 66 xidig lacagta afgees si lamida walaal haddii aad Kenya joogtid waxaa ku bixin kartaa M-Pesa 0712828308 qaabka labaad oo lacagta ku bixin kartid walaal waa sidaan haddii aad ku dhufatid linkiga aan Facebooka soo dhigay tusaale ahaan kan oo kale tusaalaan ka wataa halkan qaybtan waxaa ku arkaysaa waa qaybta warbixinta ee videoga uu yaalo halkan waa ciwaankii sidoo kale halkan lacagtii la bixiyo waaye oo donate-ka ee lacagta loo baahan yahay marka adiga waxaad dhahaysaa donate now meeshaan ayaa taabanaysaa donate now marka dhahdid lacagta intaad rabtid inaad ku sadaqaysatid unbaad qoraysaa tusaale ahaan oo kale $50 baan rabaa inaan ku sadaqaysto oo kale marka lacagta aad qortid waxaad ku dhufanaysaa qaybtan EFC-ga haddii aad EFC isticmaashid ama jeeb isticmaashid ama sahal ama zaad aad dibadda aad joogtid oo aad isticmaashid Mastercard halkan ayay kaaga soo baxayaan kulligood tusaale ahaan oo kale Mastercard haddaan ku dhufto qaabkan ayuu ugu soo bixiyaa halkan warbixintaada gelinaysaa aan dhaho marka EFC numberkaaga isaga ayaa kuu bilaabaya numberkuun baad gelin hadda process payment ayaa dhahaysaa diyaar moota inaad ku sadaqaysatid lacag Somali Charity yes unbaad dhihi yes number sirtaada ayaad gelin sidaas ayaadna lacagta ku bixisay walaal